بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqonay kulan muhiim ah oo looga hadlayay saxaafadda iyo sida xorta ay wadanka uga howlgeli karto. runtii waxa uu ahaa kulan waxyaabo badan la isweydaarsaday oo ay ka mid yihiin xogaha ku saabsan badqabka suxufiyiinta iyo sida saxaafadda ay sida xor wadanka uga shaqayn karto. ka dowlad ahaan waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ka go'an tahay in saxaafadda xorta ah ay sida ugu wanaagsan dalka uga howlgasho, iyadoo dowladdu ay ka go'an tahay in ay hubiso badqabka suxufiyiinta iyo in saxaafaddu ay si xor u shaqayso iyadoo ilaalinaysa anshaxa saxaafadda iyo mas'uuliyadaha ka saaran tabinta ay bulshada u sameynayaan, maadaama ay yihiin qayb muhiim ah oo bulshada u baahan tahay oo ah inay xogta u gudbiyaan. waxaa looga baahan yahay saxaafaddu inay la yimaadaan waajibaadkooda, inay ilaaliyaan anshaxa saxaafadda, in la ilaaliyo ay kobciyaan aqoontooda iyo xirfadaha ay u leeyihiin in ay bulshada u gudbiyaan wararka ama waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin. arrimo fara badan wadanka way ka jiraan oo caqabado ah oo ku saabsan sidii saxaafadda caqabadaha haysta wax looga qaban lahaa. dowladdu diyaar ay u tahay caqabadahaas inay wax ka qabato, maadaama dalku uu ku jiro marxalad xasaasi ah oo dagaal lagula jiro khawaariijta. caqabadahana ay badan yihiin. dowladdu diyaar waxay u tahay in caqabadaha la xalinayo Soomaaliya dib u dhiskeeda qayb inay ka noqdaan saxaafadda iyo in si xor ah wadanka uga shaqayso, xorriyatul qowlkan la ilaaliyo haddii la yiraahdo. mahadsanidin.